فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidaad wada garanaysaan Bilaal bin Rabaax wuxuu ka mid ahaa saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Bilaal bin Rabaax inta uu islaamin ka hor waxaa adoonsan jiray mid ka mid ah madaxdii kufaaru Quraysh ama gaaladii Quraysheed oo lagu magacaabi jiray Umayyah bin Khalaf. ninka ayuu adoon u ahaa oo adoonsan jiray markii la soo diray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu la yimid kufaaru Quraysh ama gaaladii Quraysheed xilligaas risaaladii dacwadii islaamka. Bilaal wuxuu si sir ah ama si hoose u rumeeyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bilaal ayaa muddo wuxuu islaamnimadiisa ku qarsanayay qalbigiisa ama laabtiisa. kadib arintaa waxay soo shacbaxday markii uu arkay inankii uu dhalay Umayyah bin Khalaf oo la oran jiray Safwan ibn Umayyah ayaa wuxuu arkay in Bilaal uu yahay muslim raacay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. markaa ayaa waxay bilaabeen Umayyah bin Khalaf in uu u hanjabo uu u goodiyo uu dhibaateeyo saxaabiga Bilaal bin Rabaax radiyallahu anhu. Bilaal ayaa ka biyo diiday inuu dib ugu laabto kufriga iyo shirkiga kadib markii uu helay nuurkii iyo iftiinkii islaamnimada. ninkii gaalka ah Umayyah bin Khalaf ayaa ugu hanjabay Bilaal wuxuuna ku yiri haddii aadan ka laabanin islaamnimada oo aadan ku laabanin kufriga iyo shirkiga waxaan ku tusayaa cadaab aysan carab weligeed arkin. Bilaal ayaa u jawaabay oo ku yiri haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu imtixaamo gacantaada sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u ogaado sidqigayga iyo runtayda iyo sabarkayga waxaan sabrayaa sabr aysan carab weligeed arkin. Umayyah bin Khalaf wuxuu bilaabay cadaabkii iyo dhibaatayntii saxaabiga Bilaal radiyallahu anhu. Bilaalna wuxuu ka dhabeeyay ballantii uu qaaday ee sabarka inuu ku sabro cadaabka Ilaahay dartiis u soo gaaray. Bilaal wax la cadaababa sidaad ka war haysaan Makka oo aad u kulul ayaa in banaanka loo soo saaro xilliga duhurkii oo ay qoraxda aad u kulushahay ayaa lagu cadaabi jiray. dhagax aad u weyn dusha ayaa laga saari jiray si cadaabkaas iyo xanuunkaas iyo cadaadintaas uu ugu laabto kufriga iyo shirkiga. hase yeeshee Bilaal kelimada kaliya oo oranay waxay ahayd ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad oo macnaheedu ah Allah waa kaliya ahad waay. wuxuu la jeeday Allah waa kaliya macnaha ayaguna waxay doonayeen inuu caabudo sanamyaasha caabudu jireen Laata iyo Uzza iyo Manaata iyo waxyaabaha shirki iyo kufriga inay ku celiyaan ay doonayeen. hase yeeshee Bilaal uu ka biyo diiday arintaa waxaa ogaaday oo arkay Abu Bakr as-Siddiq khaliifatu rasuulillah wuxuu u yimid Umayyah bin Khalaf wuxuuna u sheegay war ninka miskiinka sidaan u cadaabayso cadaabka ka daa aniga ka iibsanayay ilaa adoomanka sidaan wada ogna waa la kala iibsan jiray. Umayyah bin Khalaf wuu ogolaaday inuu Abu Bakr ka iibsado Bilaal oo adoonkiisa ahaa. Bilaal sidii ayuu Abu Bakr ku iibsaday kadibna Ilaahay dartii iyo wajiga Ilaahay ayuu u xoreeyay. sida ayuu Bilaal islaamnimadii uu qaatay wuxuu ku helay xornimo adduunyo iyo janno aakhiro. waxaa dhacday markii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay u hijroodeen magaalada Madiino oo Bilaalna uu raacay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam si sir ah uu ka dhuuntay magaalada Makka oo hijrooday magaalada Madiina. waxaad wada ogtihiin in kufaaru Quraysh ay dagaal la galeen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. dagaaladii ay la galeen waxaa ka mid ahaa dagaalkii Badr. dagaalka Badr waxaa ku wada kulmay oo isku arkay Umayyah bin Khalaf kii gaalka ahaa ee cadaabi jiray Bilaal bin Rabaax iyo Bilaal bin Rabaax oo aziis oo sharaf leh oo seeftiisa wato oo dhanka muslimiinta ka safan kana doonaya inuu ka aarguto dhibkii uu u geystay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa iyo isaga naftiisa qudhiisa dhibtii uu geystay. markii uu arkay ayuu yiri la najawtu in naja ra'sul kufr Umayyah bin Khalaf ma bal badbaado haduu badbaado gaalka weynaay ee madaxa gaalada Umayyah bin Khalaf. markaa ayuuna seeftiisii ku dilay sidaa ayuuna ugu takhalusay. Bilaal bin Rabaax oo shalay ahaa adoon maanta waa aziis waa ciidankii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayuu ka mid yahay wuxuuna halkaa ku dilayaa oo ka argudanayaa cadowgii Ilaahay iyo cadowgiisa
umayyad ibnu khalaf. wuxuu cisi ku helay bilaal waa diinta islaamka ilaahay subxaanahu watacaala dadkuu ku ciseeyaa. qofkii ilaahay jidkiisa raacana wuu ciseeyaa, qofkii ilaahay subxaanahu watacaala u nasreeyana ilaahay wuu u gargaaraa. qofkii ilaahay jidkiisa raacana wuu ciseeyaa, qofkii ilaahay subxaanahu watacaala u nasreeyana ilaahay wuu u gargaaraa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.